markale waxaan ugu soo laabanaa directorka caanka Rajiv Rai oo toddobaadkii dhawaa ka soo qaadan wareysi xiiso badan uu bixiyay markii loo dabaaldegay 31 sano ka soo wareed filimkiisii classic ah Mohra oo safarkiisii dheer iyo meelo kala duwan wareysi uu kaga hadlay aan soo qaadanay markale toddobaadka Rajiv Rai uu nagu soo laabtay sababta 4 July 1997 waxaa soo baxay filimkii Gupta super hit ka weyn ah Bobby Doll Kajal iyo Manisha Koral isugu keenay sidoo kale tan saaxiib filimkaas wuxuu musical blockbuster inaba caadi ah heesiis ilaa maanta dabcan laga maharo Gupta waa ka warqabnaa dunya hasino kamelo kale dabcan Bobby Doll sidoo caan uu ahay hees Gupta ku jirta oo xunba ma jirin sidoo kale tan wuxuu filimka sadeedaad ee 1997 uu lacagta badnaa oo ahay 18 karoor xilligaas soo xareeyay sidoo kale hiidu ahay waliba film thriller oo qiyaano iyo musical isku jira sidoo kale tan lacagtaas haatan 28 sano kadib waxay u dhigmataa almost 180 karoor ilaa 200 karoor u dhigmataa taasoo laga fahmi karo marka sida uu Gupta u weynay 28 sano ka hor markii uu soo baxay Master Hirane Rajiv Rai uu soo laabtay laba agenda ayuu dabcan ka hadlaya xasuusihii filmadiisa uu ka faa'iideysanayaa si Highlands Black uu soo laabtay iyo sidoo kale film cusub uu iska leeyahay lagu magacaabo Zora oo soo baxay 8 August bisha dambane in uu promotion u sameeyay marka waxaan eegaynaa Gupta su'aalaha laga weydiiyay xasuusihii uu galay Gulshan Rajiv Rai iyo jawaabihi uu ka baxshay iyo sidoo kale dabcan filimkii Zora uu ka hadlay 8 August uu soo baxay director miisaan culus waa ninkan saaxiibayaal shabakada caanka Baron Hungama xasuusna galiyeen Master Gulshan Rai markii aan filino su'aalaha ugu horeeya ee la weydiiyay waxa kamid ah daawadayaal waxa la dhahay ka warna la maxay tahay sababta ilaa iyo hadda maantadan la joogo filimka Gupta markii dib loogu laabto ayadoo la ogyahay xitaa dilaaga oo filimka Kajal la darto la ogyahay la daawo ilaa hadda ay daawadayaasha ka sabri laayiin sababtay u daawanayaan waxay tuu dhahay sababta mar walba Gupta loo daawado oo loo xiiseeyo twistiga uu leeyahay isbedbedelada uu leeyahay screen play fast pace sida uu ahayd macnaha filimka Gupta hal meel caajis kuma jirin wuxuu ku socday xawaaro waana xaqiiqo heesaha waxaanu ka dhawaajay very engaging hees kasta wuxuu dhahay marxaladda ay ku haboontahay ayaan soo gelinay sidoo kale tan wuxuu dhahay waxyaabaha kale ee iloobi karaan xitaa qaabka narrative-ka sheekada u dhignay iyo wuxuu dhahay xitaa climax-ka ultimadana waa mid wuxuu dhahay daawadayaasha marnaba aysan iloobi karin Gupta markasta oo daawato wuxuu waxa kugu soo dhacay waxaan caadi ahayn dhinaca kale tan wuxuu dhahay daawadayaasha waxaan galiyo dhahay xujo ku aadan in Gupta aysan ka tagin ilaa dhamaadka adoo wuxuu dhahay hore u daawad xataa Gupta marka dib hadda u shidato wuxuu dhahay markasta waxa kugu taagan shock factor ka sidee ku dhacday inay Kajal dilaaga oo noqoto saadartay wuxuu leeyahay marka waa film markasta oo daawatid ku ceshanayo oo aan dabcan wuxuu leeyahay manaba ku ogolaan Gupta shadana waa ka tagaa ma dhicin waa run Rajiv Rai xaqiiqo sheegay Gupta hadda aan arko inaan dhameystaa jirta hadii noqoto heesaha performance-ga qiyaanada cabsida wuxuu ahaa film manaba aan laga xiisa dhigaynin su'aasha labaad ee la weydiiyay waxay ahayd waxa la dhahay do you consider multiple potential killers during the writing macnaha ma ku fikirtaa la sheekada Gupta marka qoraysay multiple killers macnaha dilaal kala duwan Kajal inuu ka dhigo Manisha inuu ka dhigo Bobby Doll inuu ka dhigo Raj Barbar ka dhigo ninkii Barash Wal uu ka dhigo Mukushish uu ka dhigo Omburi uu ka dhigo xitaa kii Sadashaf Ambukar Mal Leeb uu ka dhigo macnaha ma ku fikirtaa la ina laadarka macnaha dilaaga qofka ka dhigis kala badasho waa ku fikiro dhahay sida hada jawaabta uu bixin ninkan wuxuu dhahay yes wuxuu dhahay I tried waxa isku dayo to cast suspicion everyone qof kasta wuxuu inaan isku dayo hebel ma ku haboon inaan dhaho qofka ugu dambeeyo waxa dilay ha noqdo taas waxay keentay dhahay marka inaan hal abuurkii aad u bato dhahay xitaa dadka qaar kood wuxuu dhahay jilayaasha waxaan ku dhahay adaa noqonays qofka ugu dambeeyo dilaaga xitaa karakterada qof kasta uu ku wareero mid walba shaki uu galo ilaa wuxuu dhahay marka ugu dambeeyo writing-kii aan fariisiyay waan hal go'aan gaaray ayaan u sheegay Kajal inay dilaaga dhabtay laakiin inta kale wuxuu qof kasta shakiya galiyay adan ka dhigaa ultimate killer ka ama serial killer ka waxa la dhahay su'aal kale muhiim ah Gupta jilayaal miisaanka culus ku jiraan kulligood Faris Joyce ma sababtoo ah Rajiv Rai taa la tiri Dave waxa soo sameeyay special Mohra Gupta dadka ku wada jireen kulligood dooqaa kuwaad ma ahaayeen misdada intay ku diideen kadib dooqa labaad ka dhigay wuxuu dhahay sheekada markaan qoraayo kuwa maskaxda ku hay iyo wuxuu markaan dhameeyo qof kastaba dooqiyo kuwaad u hayo sida uu wareysi ku sheegay wuxuu yes wuxuu dhahay every character you see in the film wuxuu dhahay was my first choice dooqiyo kuwaad u character kasta ama door kasta film ka soo muuqdo wuxuu dhahay dooqiyo kuwaad u hayo wuxuu dhahay waayigi fanki markaan ku cusbaa bilawgi fanka Tridave ka hor waa dhibaatoodo dadka atoorayaasha qaar kood in la shaqeeyo xogaa iyo laakiin wuxuu dhahay Tridave waagan sameynaya xogaa wuxuu dhahay laba atoor markaan Sanadol iyo Hello dhahay Jack Sharaf atoora saddex raadintiisa ugu dambeyntii Nasruddin Shah Hello laakiin hadda wuxuu dhahay waxaan sameeyay oo dhaw fishwadma iyo Mohra iyo Tridave soo sameeyay dadka aan qortay ayaa kulligood wuxuu dhahay kulligood aqbaleen inay filimkayga sameeyaan sidoo kale tan wuxuu dhahay company-gaygana Telemetry company weyn waa aabeer Gulshan Rai wuxuu shakhsi laga dambeeyay yaa diiday markii inuu la shaqeeyo saadartay wuxuu dhahay marka dhammaan dadkii aan doortay
ayaa filimkii wada jilaan u dhahay waxa la dhahay marka haddana su'aal kale waxa la weydiiyay sidee kuugu suura gashay big stars filmkiisa ugu keentay inaan manage garayso meesha buuq uusan ka dhicin la iska qabsanin filimka si smooth oo la wada jecel yahay loo dhameystiro gubta intee shaqada socoto muran lama soo sheegin sidee kuugu suura gashay la Rajif Rai wuxuu dhahay daacadii markaan ka hadlo dhahay marka la shaqeynaysa A-listers dadka waaweyn ee A-listerska atoore ama tirisho kuwa miisaanka culus ah inta badan waxay u baahan yihiin ka dhawaad in space la siiyo oo la ixtiraamo lagu qaylin saadartay wuxuu dhamaa qof kastaba ruux xushmada u muujiyo qofkii xitaa wuxuu marka qaar sharcan shaqada siinka saa u rab aan u sameyn kuma qaylin inuu dhahay waxaan dhahay saas ugu celi saasan ka rabaa dhinaca kale xitaa wuxuu dhahay marka la fiirsho shaaxoodii iyo sambuskoodii waxa tartiiba lagu keenay najarka waxaan ila aqaanaa sida loo ilaashado dabeecadaha iyo jawiga iyo dadka waaweyn saadartay qof kasta oo degan oo qanacsan ila shaqeynaa marka halkee problem ka imaanaa u dhahay dhinaca kale wuxuu dhahay qof kasta space aan siinayo wuxuu jecel dadka celebrity waxay jecel yihiin qof kale ta space inuu siiyo markuu meesha booba imaado kale ixtiraam xooga wixii loo sameeyo kaajal marka imaado manisha imaado qof walba wuxuu dhahay sidoo ku qanacsan u sameeyay meesha wax isqabsada ma jiro u dhahay waxa kale la weydiiyay waxa laba gabdhood waxa isku keentaa xilligaas sagaashamaadkii qurxanaayeen saameyn lahaayeen taageerayaal lahaayeen kaajal iyo manisha karola haddana sidee kugu suura gashay filimkina u qaybisid labada gabdhoodna filimka dabcan lagu wada amaano jilinkooda cid isqabsatana aysan jirin shaqada aysan ka hakan waa la ogyahay xilliga sagaashamaadkii laba atrish filimkii lasoo keenay mid iska xanaaq jirto bix jirta barbari jire mid filimka dabcan wax taban jirtay ilaa hadda lama hayo Rajif Rai wuxuu ku jawaabay markuu wuxuu dhahay wuxuu dhahay horta ko not at all wax zero issue la labadan gabdhood madax oolno dhahay no ego clash qab weynin iyo ma jirno wuxuu dhahay saas oo kale no creative difference hal abuur lisku qabsan ma jirno dhahay no competition over scene muran iyo doorkana rabaa iyo siinkana rabaa in maba jirno dhahay laba qofood oo majuuraan la shaqeeyo dhahay wuxuu dhahay I was lucky waana si badna ayaga wuxuu dhahay two devil beautiful gane laba gabdhood oo qurux badan oo qab leh qof kasta jecel inay wixii loo sameeyo haddana markaan isku imaano sheekada saa ugu qaybiyo noqoto dhahay cid isqabsata mala marka wuxuu dhahay waxa dhihi karaa waana si badan oo sababtoo kaajal iyo manisha taas ku keenay cidna isqabsano filimkayga si qurux badan ugu dhamaado dhahay ayadoo caqabadna aysan dhicin gabdhahaas wuxuu dhahay ilaa hadda waa ixtiraamayo dhahay waxa kaloo la weydiiyay ka warna leh gubta laba faktara guushiis ugu weyn keenan music iyo locationka xasuusa la galish odaga waana xaqiiqo marka gubta daawanayso waxa u daawataa heesaha musiga fi juusha uu tumay iyo locations qurux badan lagu daawaday noqoto Switzerland hadii noqoto gudaha Hindiya directorka waxa waaye wixii meesha uu ka hadlaha loo sii taabto marka qawaraysiid waxa la sameeyaa qofka waxa loo sii taabtaa meelaha qaar u baahan inuu ka hadlo wuxuu dhahay absolutely waa asiibto ninka wareysanayo wuxuu dhahay musicada iyo visual marka isku heshado music aan caadi ahayn iyo goobo qurux marka isku heshado dhahay waa waxa kaliya modern mastery lagu talagalay dhahay film direct in dilaaqa son sameeyso dhahay labadaas iska dhiso dhahay musicana iska dhis goobaha lagu duubayo wuxuu dhahay iska soo diyaari kadib wuxuu dhahay masterygaas daawadayaasha aad u soconaa wuxuu dhahay ilaa hadda visual meelaha aan ku dubin location wax aan caadi ahayn ka dhawaajiyo sidoo kale wuxuu dhahay every frame angle meel kasta aan ka duubno wuxuu dhahay xagal kasta filimka iyo qaabka dramatic oo caadi ma ahayn waliba wuxuu dhahay musicada fi juusha uu tamakal iyo laaba aheedo dhahay fi juusha markasta wuxuu dhahay la shaqeynaa ninkan wuxuu dhahay maba ahayn in hagarado dhahay asoo ma hor isoo sii haddana gubtu igu daro dhahay marka qofkaas oo kale lama heli karo 24 hours ku garab taagan marka wuxuu dhahay gubta quality uu lahaa adaaba soo kabto dhahay weydiin haye waxa la Rajif Rai hadda waxaan joognaa 28 years of gubta la 28 sano ka soo wareegto gubta qayb labaad ma ka sameeyay sequel odaga marka arintaas wuxuu ka dhahan eeginaa wuxuu dhahay I didn't want to repeat myself ani wuxuu dhahay ma jecli nafsadeena ku soo celisho macnaha wuxuu ka wadaa ma jecli oo waxaan sameeyay mar labaad ku soo laabto sequel inuu iska qabsado filimkan qayb labaad ka sameey qayb saddexaad ka sameey waxaas ma jecli uu dhahay aniga waxaan jecel oo dhahay mar walba space cusub iyo sheeko cusub inaan tijaabiyo dhahay saadartay marka wuxuu dhahay gubta waqtigiisu soo qaatay waa in aragtu ka dhawaaji gubta 2 inaan sameeyo waligeena wuxuu dhamaan ku fikirin film walba waa sameeyaa dhahay dhaxal kasta iyo guul kasta uu ka tago waa ka socdaa wuxuu dhahay kuma laabtiyo dhahay saadartay wuxuu dhahay marka hadda gubta inaan qayb labaad ka sameynayo ima muuqato dhahay dhawaan waxa ku dhawaaqdaa filimkaaga cusub Zora inuu soo baxay 8 Agosto 8 daawadayaasha ula falgali kartaa leh dadkii waaweynaa maxay ku diideen raggii waaweynaa Akshay Bobby Sunil Shetty JK Sharaf Sunny Deol Nasruddin Shah JK Banda Gulshan Grover Anubam Khair ninkan wuxuu soo shaqeynay xisaab male Biryanka Jabra Ajrambal dadkii waaweynaa maxay ku diideen ilmahan yar u soo wadataa leh
odaga wuxuu dhahay adiga fiiri ninkan wareysana aniga wareysimaa la sawaal waligeeba film markaan aniga sameeyay u dhahay huge stars ma wala shaqeyn jirin wuxuu dhahay dadka filmkayga sameeyaan ama waa rising star ama promising star waaye ama markaas space ka soo korayaan أنا اللي بريح جرو مركا سم حقوق دعوة أنا اللي مريح جرو ولا جولا تريديف كل ساقات يسوع ده السنة يجيك شرف حلقاس يجي يونس الدين شا استابليش لأهاين معناه هالفيلم وحده هاي فيلم كاس مكان سمينا إيفش ودما لكن وحده مهرة كلا وحده مركان سمينا أكشي كماري سنون شيء وهاين برومايسن ستارس هديك صوب هاي مستقبل لأهاين هالسن لبسن عمل فن كجرين سادرت وحده هاي فيلم كيجا مهرة كده جودا بيك ستارس صدق كلا وحده بوبي دولا كلا وحده فيلم كيسي كواد لو برساد وسميه كيس اللي بعده وحده مركان جبته وجامي كواد كده دقة أجر رمبال وحده أنا بيار إشقار محبة كسو عم به وده سادرت هذا المهن أنا دورته داي وحنا قندنا هو مستقبل كهندي laga baran doona taas ana ballan qaadayo dhahay waxa la weydiiyay su'aal ku aadan Zora muxuu yahay saaxiibo noo sheeg Zora wuxuu dhahay waa thriller qiyaano iyo master killer dil gubta ka hormarsan saaxiibo mano dhiibeysa baashan iyo gubta kale lagu celin kare laakiin ninkii gubta sameeyay hadaa tahaybo kuuma xad gudbaayay waxaan rajeynayaa saa u dhahdo inuu Zora u noqdo film noocaas oo kale inkastoo hadda goosgoosna kama hayno wax kama hayno Rajiv Rai wadada ka kacsaga shamaadka lama joogo xilligan kale markii filmkaaga bil ee ka dhimantay boorsaminda la soo bandhiga promotion la sameeyaa sad uu fiican yahay xogaa wareysi wuxuu bixinayaa marka sidoo uu dhahay Zora wuxuu film halis badan waa uu leeyahay cabsi iyo qiyaano wax kasta oo dhameystiran gubta oo kale waa uu leeyahay inuu soo noqdo rajeynana kulli waa arki doonaa dad goos ka soo bandhigo sheekada Rajiv Rai iyo gubta xasuus aan wada galnay intaas nooga eegay ugu dambeyntii gubta lama tuuri karo filimada wuxuu kamid yahay mar walba la wata ani gubta farqiga ma ka baxaw jawaabku ugu jira film waxa jiraan jawaabku la soo wato aan bixin kalti classic dhammaan directorada filimada uu sameeyay Tridayf Fishwadma Mahora gubta حتى بيار إشغال مهبط كل جود ما دقي أنا أسكت جواب بدن جوابك يجوب عمر أنت أصلا يكفتنا طياري مقال كان أنت سنوي ورئيسي جلايش أسبوع أو أسبوع عم أقدر أجيب رأي هستي حسوسنا دي صاحب نقول عصب دينا كان سبسكرايب نوصل